سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت بدن عافيماد قب نلل وناكسن iyo farxad ayaan idin rajaynayaa waxaad aragtaa dad meelaha istiriidada ama shaaracyada isku dhunkanaya si kadisa ama lama filaana dadkaasi afka ay iska dhunkanayaan dhunkashadooda ama shumiskoodana way isku talax tagayaan oo waxa loo yaqaan deep kissing bay sameynayaan ama dhunkashada ama shumiska aadka u fog ee carabka iyo dibnaha ay dadku isgeliyaan ama isku walaaqaan haddaba dadkaasi sida caadiga haddana xanuun badan kala qaadi maayaan way kala dhaqaaqayaan xanuunno komana oo ay kala qaadayaan oo badanina ma jiro waxaad isweydiinaysaa sababta ay xanuunno badan ay u kala qaadi waayeen su-aasha kale ee iyaduna dabcan dadku inta badan ay isweydiiyaan waxaad arkaysaa meelaha shaaracyada dad iyaguna dadka loo yaqaano street people-ka ama dadka wadooyinka ku nool ama derbi jiifka ama inta badan wadooyinka seexda ama ku nool inay dadkaasi cuntooyin ay isticmaalayaan aan markaas safe ahayn ama cuntooyin qaarkood ay contaminated yihiin oo markaas aanay ahayn kuwo nadiifa ama cunto markaa caafimaadkeedu fiican yahay aanay ahayn cuntooyin la isku soo dardaray cuntooyinka dadku ay hambeeyaan cuntooyin laga yaabo inay saacado iyo maalmo badan ay yaaleen haddana dadka waxaad arkaysaa iyagoo iska soconaya oo aan dhulyaal ahayn oo aan xanuunsanayn waxaad isweydiinaysaa maxaa qaldan soo kuwii dhakhaatiirtu ay ka digi jireen cuntooyinka aan safeka ahayn ee loo yaqaano contaminated foodka in bacteria laga qaado in xanuuna laga qaado waxaad kala isweydiinaysaa maxaa qaldan soo kuwii dhakhaatiirtu ay ka digi jireen dhunkashada ama shumiska afka la iska shuminayo inuu xaalad caafimaad iyo khataro caafimaad uu dhaxli karo waxaa kale aynu aragnaa dadka oo ka cabanaya inta badan calooshooda inay aysiidho ay ku badatay taasina ay dhibayso calool xanuun ay ka qaadayaan waxaa kale aynu aragnaa dad badan oo soo daadinaya balqanka ama dareeraha ka soo baxa afka ee candhuufta waxa kale oo aynu aragnaa dadkoo dadaal dheer kula jira dhagahooda inay farafareeyaan ama dhegta inay markaa ay ka soo saaraan waxaynu naqaano dhukayga haddaba sirta ka dambaysa sababaha dadkani ay u xanuunsan waayeen iyo muhiimadda muuqaalka waxaynu ku soo qaadanaynaaba waa saddexdan ta koowaad haddii aynu istul taagno waa zalifa from bloated glands hydrochloric acid from stomach iyo waste from ear saddexdaas ayaa waxay yihiin saddexa sida dhabta ay noo ilaaliya caloosheennu waxay soo daysaa acid loo yaqaano hydrochloric acid dhammaan cuntooyinka contaminatedka iyo cuntooyinka aan nadiifta ahayn ee caloosheenna ku dhaca dhibaatooyinka la socda iyo noolahayna dhibi lahaa waxa dilo oo inaga saarta acidaas ayaa burburisa taasi faa'iidada ugu weyn ayay inoo leedahay acidana lalama dagaalamo ee waa la koriyaa oo qaabka loo kobciyo waxaa ka mid ah inaad qaadato cuntooyinka loo yaqaano cereal foodka cuntooyinka galka iyo gas kale ee sare u qaadi kara galka caloosha qodobka labaad waxaa si ballaadhan inoo ilaaliya inaanay xanuunada inta badan shumiska ama dhunkashada afka la sameeyaa aanay ka soo gudbin candhuufta candhuuftu waxay leedahay treated substances ama enzyme ka hortagi kara viruska iyo bakteeriyada soo gala afka ama markaa mukuska iyo qoyaanka afkaaga ku jira bakteeriyada dabadda ka timaada ama viruska dabadda ka timaada ayay dili karaan oo ay ka qaban karaan qodobka ugu dambeeya waa daloolka dhegta daloolka dhegta waxay noo ilaaliya xaydh aynu u naqaano dhukay oo loo yaqaano waste oo inaga qabata noolaha geli kara dhegteenna ina dhibaatayn kara saddexdaas ayaa si heer sare ay noo ilaaliya sababana inaynu khataro badan ka badbaadno haddaba ilaasho dhukayga ilaasho candhuufta isla markaana saruqaad gaska caloosha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh